بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan dhamaantiin badawadayaal ku soo dhawaada wararka Universal oo si toos ah idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaan idin warrami doonaa anigoo ah Nuur Maxamed Cali aan idin dulmaray qaar kamid ah qodobada aad daawan doontaan madaxweynayaasha dawlad goboleedyada dalka ayaa ka qayb galay kulan xubnaha aqalka sare ee ku yeesheen magaalada Muqdisho iyagoo khudbado kala duwan halkaasi ka jeediyay magaalada Stuttgart ee dalkaasi Jarmalka ayaa deeq lacageed ay iska soo ururiyeen waxay u soo direen walaalahooda Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay qaraxii mashaqada ahaa ee 14 bishii dhaaftay ka dhacay isgoyska 14 Oktoobar ee Kisoobe ee magaalada Muqdisho musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi ayaa fagaare ku yaala magaalada Ceergaabo boqolaal taageerayaashiisa kula hadlay halkaasi akhbaaraadka caalamka aan idinkaga haynana waxa kamid ah Sacuudiga Iran waxay ku eedeysay gantaal Xuutiyiintu ay ku rideen magaalada Riyadh qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena goordhow aan ku bilaabay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada dalka oo maalmihiina dhaafay Muqdisho uu shir uga socday iyaga iyo madaxda sare ee dawladda dhexe ayaa waxa ay ka qayb galeen kulan xubnaha golaha aqalka sare ay ku yeesheen xaruntooda Muqdisho madaxweynayaasha dawlad goboleedyada halkaasi waxa ay ka jeediyeen khudbado dhowr ah Cabdinaasir Maxamed Cali Faransa oo ka qayb galay kulankaasi ayaa faahfaahinta warkan inoo haya shanta madaxweyne maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa maanta khudbado ka jeediyay xarunta golaha aqalka sare ee dalka hogaamiyaasha maamulada ayaa khudbadahooda uga hadlay waxyaabihii ka soo baxay shirkii ay Muqdisho uga qayb galeen dhawaan ee u dhaxeeyay hogaamiyaasha maamul goboleedyada dawladda dhexe arrimaha federaalka dalka khilaafyada siyaasadeed iyo waliba arrimaha dastuurka khudbadaha madaxda ayaa laga dareemi karay kala aragti duwanaanshiyaha siyaasadeed ee iyaga iyo madaxda dawladda dhexe iyadoo ay muuqato in dhexdooda ay heshiis ka yihiin siyaasadaha dalka laakiin ay la siyaasad dhiganayaan dawladda dhexe ee Soomaaliya maalin walba dawlad baa la dhisaa 4 sano ay socotaa lagu hay isku marataa laba kala baxo waqti saas uga dhamaa marka waxay la tahay waa mas'uuliyad darro waxaan rabaa marka iyadoo wixii lagu aragti duwan yahay la iska qancinayo laga wada hadlayo ayaa waxaan rabaa haddana mashiinkaas iyo geedigaas soconaya dawladnimo in la wado oo aan gaaruhu joogsan baa la rabaa laakiin waxaad moodaa in la iska dhaafay qaybtii garsoorka oo ugu weyn tahay garsoorka lagu kala baxo dastuurka haddii aan la helin muxuu ahay maxkamadaas dhammaanteed warkeenu wuxuu ku soo aruuriyaa adaa yiri aniga saasay ila tahay anigana saasay ila tahay iyo in awoodii iyo resource-kii dawladda leeso adeegsado si qof walba jidkiisa uu marsan lahaa marka inaan la isku xoogayn mar walba inta xoog la aan wax qaadanin kuwa xoog leh iyo kuwa xoog daran inay wax helaan wadankuna meeshii dadka xoog leh ka yimaadeen iyo meeshii kale inay wax gaaraan dadka laga dhawaadiyo wadadaas inay aftiibiyaan waddanka la ilaaliyo xasiloonidiisa haddaan maalin walba crisis annagoo waxba gacanta ku haynin oo waddankii gacanta shaab ugu jiro oo maanta intaasoo mas-uuliyiinta nin maanta deegaankiisa dhex safri kara Puntland baa ka jirta oo iyaga laftoodu aan masaajid ku jirin 200 meelood la isu gelayo waxba lagu samayn karayo inta kale hawadaa laga duulaa dadka xol looga geyn karo lama xukum maxaa la xukumaya sanitarada kuwa galmudug ka soo jeeda gaar ahaan waxaan ka codsanayaa inaad hadda bal guddiga diishiisa ka dhigtaan isu tagtaan bal hadda adinka lafteeda waa ogaya inaad kala siyaasadeeda isweersan noqotaan marka ugu horeysa marka labaadna xildhibaanada galmudug ka soo jeeda oo reer galmudugga laftooda in la ii ammaan geliyaan in codsanayo meel kaloo aan ku hadlamahay haddaan xildhibaanada ii ammaan geliya oo halkaan ha ku shirinin oo xagga ha ugu teginin oo qabiilka iga barinin dad badan oo isku yimid weeye waa isku keensadeen in baarigaa weli loo geliyo marka ugu horeysa waa markii ugu horeysay hogaamiyaasha maamul goboleedyada ay yimaadaan aqalkan sare oo ah aqal dawladda dhexe ku matala deegaanada maamul goboleedyada Soomaaliya
cabdinaasir maxamed telefishinka universal xarunta aqalka sare ee magaalada muqdisho. ku dhaqan magaalada Stuttgart ee dalkaasi Jarmalka ayaa deeq lacageed ay iska soo ururiyeen waxay u soo direen walaalahooda Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay qaraxii mashaqada ahaa ee 14 bishii dhaaftay ka dhacay isgoyska 14 Oktoobar ee Kisoobe ee magaalada Muqdisho. ayaan la mudakar ayaa faafahinta warkaasi Stuttgart ka soo diray. kulan isku yimaadeen jaaliyada Soomaalida ee Stuttgart ee dalka Jarmalka waxa kulankaasi daarnaa gurmadka loo fidinayo dadkii wax ku noqday qaraxii Soobe 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga qaran ururinta Stuttgart ee magaalada Jarmalka Ali Khaliif ayaa waxa uu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay cid kasta oo ka qayb qaadatay qaran ururintan muddadii ay socotay. sidoo kale lacag gaadhaysa 2170 euro si rasmi ah ugu wareejiyay gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee Stuttgart Daha Ahmed. 14 bishii hore 14 ee loo soo gabagabowday waxa ka qayb qaatay Soomaalida degan magaalada Stuttgart iyo agaarkeeda aad baa looga qayb qaatay. waxaa loo soo gacan galay lacag gaadhaysa 2170 euro. lacagtaas waxaan anigoo ku hadlaya guddidii loo xilsaaray arrinta lacagta ku wareejinaya gudoomiyaha jaaliyada Masadaha si uu loo sii gudbiyo dadkii arrintaas xaq u lahaa umurtay. ka gudoomay annagu waxaan hadda usii gudbinayaa haddii ilaahay yiraahdo wakiilka xawaalada ka ee u fadhiya magaalada Stuttgart. waan leenahay insha Allah dadkii waxyeelada soo gaartay inuu sii gudbiyo. waxaana halkaasi uu ka sheegay gudoomiye Daha in lacagtaasi lagu caawin doono dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Soobe ee magaalada Muqdisho. waxaana uu si rasmi ah lacagtaasi ugu wareejiyay wakiilka xawaalada ka ee magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka Cabdirashiid Shariif oo lacagtaasi gaarsiin doona guddiga sare ee taakulaynta ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. lacagtaas jaaliyada Soomaalida Stuttgart degan ay ii soo gudbiyeen anigoo matalaya xawaalada ka Express ee Germany Stuttgart. waxaan ballan qaadi haddii alla yiraahdo meeshii ay ugu talagaleen iyo guddidii qaranka ee u ururinaysay dadkii masaakiinta ahaa ee waxyeeladu soo gaadheen in sida ugu dhaqsaha badan ay ku gaadho iyadoo waxba ka dhimanayn lacagta la ii dhiibay ayaan ballan qaadi anigana insha Allah. gabagabadiina waxa halkaasi tix gabaya oo qiiro leh halkaasi ka soo jeediyay abwaan Sharmaake Carab oo kamid ah abwaaninta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka. in aan halkan tacsi uga diro dadkii lagu gumaaday Muqdisho 14 bishii tobnaad. waa masiibo qaran dumay, waa murugo iyo ciil, waa maalmo carab badan mugdi weeye nagu dhigan taariikh ma guurtaa aan maskabinay weeyaan. Muqdishoy san doontid maalmee Muqdishoy haniyad jabin, Muqdishoy haniyad jabin mudantii dalkayga ay mahuraankii noloshaytii lagu maqsuuday waxa tahay muraayada dhibta mawle ka hay ka qari masiibada hayeeshee malyuunay maandeeq hashayday xeebtii mudnayday maalmaha adduunkee nooluhu macinsado mindiyaal af badan iyo miishaar waxgoysiyo mudciyaa ka buuxee bal mugaabso aragtida taariikh la soo maray isha mircse eegmada sidaad maalmihii tegay dhigaa ugu mudnayd eeg. waa yalla mudakar TV-ga caalamiga Universal magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka. aan markan